meelaha shidaalka uu ku jiro xanuunaan laga sheegay waayadii ugu dambeysay maxaa ka jira isla bal arrimahaasi haddii aad xog kala socotay dadka shacabkiina inta badan waxay u aaneynayeen in say sheegayeen warbaahinta ay la wadaageen in shirkadaha shidaalka qodaya iyo wasaaradda macdanta Itoobiya iyo waxaas ay sun ay ku daadiyeen dhulka ay u aaneynayaan in xanuunadaas ay ka dhasheen arrimahaas maxaad kala socotaa horta shidaalku wuxuu ka mid yahay kheyraadka deegaankeena ayna shaqo ku lahayn caawa haddaad u tagto madaxweynaha deegaanka Soomaalidu wax ka socdo kama warhayo waan kugu dhaaran karaa xaqiiqatan aslan meeshaan kheyraadkanaga oo la guranayo meesha laga dhoofinayna lagama tashanayo kambaniga la keenayna lagama tashanayo contract inaad adigu ka hesho oo gawaarida ka ijaarto laguma ogola Highlandiska Addis Ababa iyo biyihii iyo gawaarida lagu wada laga keenaya يعني meesha waxaan ku dhihi karaa dibka u yar ee ka jiraaba waa dadka jiranayaba yaaba ugu yar bal ummad kheyraad inta leeg laga helay wadankoodii aan mar baan research ka sameeyay shidaalka gobolkeena يعني bariga Afrika oo dhan ku filan yahay wax aan ka ognahay ma jirto kaliya cudur baan naga soo gaaray baan hadda ka maqalay inta madaxweyne Mustafa yimid wuxuu dhaqdhaqaaqan sameeynay aanu barigaan la taliyaha u ahaa bal waxay u horeeyeen kala hadleen xasuusto waxa kamid aha meesha wax ka socdo ma ogin baan ku madaxweyne siin ku ogaanaa waa in injineer Soomaaliya la helaa ma rumaysani gobolkeena wax maxaa la yiraahdaa petroleum engineering hal wiil baa la helay wiilkiina Cabdi Maxamed Cumar intuu ka soo cararay markaa Nairobi ku noolaa hal ninkaas la helay wax markii intii la xasuustay idan hal engineer ma leeyin markaas madaxweynaha ku yiri inuu hadda dirno arday runtii markiiba uu iga yeelay 60 arday yaan markiiba jaamacadda maqala u dirnay hadda waxaan sanadkii labaad inay dhigtaan waa jaamacad iska yaro ma aha jaamacad batrool ma laakiin waa wax loogu tala galay qofka petroleumka galay in lagu tababaro asalkeedu aha runtii kiiska mar baan waraysigiisa jeclaan lahaa laana dadaal badan baan ku bixiyay kambanigi u horeeyay Tigreego ay siiyeen contractiga kambani Maleeshiyaan u ahaa nimankii Chinese-ka ay bariga oo nalfa ileen jireen kambaniga waxay u shaqeynayeen Maleeshiyaanka oo Petronas la yiraahdo ee China ma aynan ahayn contractiga ma lahayn kambaniga Maleeshiya ugu tagay sidana wala fadhiistay oo hadda ka soo qaxay jaamacad bay leeyihiin intaasaan rabana hadalka ku soo daro kambanigaasi waa kambaniyada adduunka ka qoda shidaalka kambaniyada ugu caansan weey jaamacad aan la helin bay leeyihiin jaamacadii baa la geeyay waa la fadhiistay waxay dhaheen maalintan ceel shidaalkiina ka bilownay qodaalka ilaa maanta 52 arday oo Ethiopian aan scholarship siinay oo ceelkiina ku siinay marka waxaa nala fadhida 4 PhD holder oo macallimiinka ah jaamacadda oo Tigreeya oo ka qaatay halkan intay ku yimaadeen scholarship ay ku qalin jebiyeen jaamacadda macallinka afartii wiil yaa maqale ka sameeyay jaamacad petroleum fiiri mashruuca sida looga faa'iiday waxa lagu aaday Malaysia waxba lagu soo bartay haddana ninka wax soo bartay baa jaamacad gobolkoodii ka furay 250 ka qof hal qof oo Soomaaliya kuma jiro qof oo Soomaaliya kuma jiro wax lagu baran oo dhan waa gobolkeena wiilashii marka jaamacaddii ay fureen yaan hadda 60 arday u dirsanay wiilashii waan la kulmay daktarada ugu tagay xagga waxay dhaheen Ibrahim taa jaamacad ma ah waxaan ugu tala galay qofkii jaamacadahan soo aadaya in waxa lagu soo diyaariyo ee idinka ma jaamacad bay la tahayba haaban ku intaas anaga wax weyn waliba lacag baan laga qaaday 60 ka arday cash baan shubaynaa waxaan kaaga wadana waxay ugu tala galin tababar lagu soo qaatay kadib jaamacad weyn hadda markaan waxaan leenahay waa talaabaan hore loo qaadin ba waa heer sare markaan dhinac kale ka fiiriyo waxaan markaa horta markaas aad loogu horeysay batroolba in laga hadlo isla marhaanta waxa la sameeyay wasaaradda ilaahay wasaaradda macdanta batroolka waa markii koobaad dawladda Mustafa samaysay waan ku mahadsantahay markaan Malaysia joogan la soo xiriiray wasaaradda oo guur warqoladaasan hayaaye oo qoladii faylkeena dhan haysay wafti aan u yeerno oo aynu booqasho idinku yimaado hada qofka Allah hadlaysaba wacyigan bahduunan wax loo ku mashquulsan yahay ama qofku iska mirqaansan yahay ama waxa uu iskaga jiraa hadalkiiba dhag looma dhigin waxaan rabaa markaa inaan ku dhaho qaybtan batroolka waxa ka socda haduu sun yahay hadii la daldalanayo meesha laga dhoofinayo dhuumaha la gelinayo yaa ka shaqaaloobaya cid kaaga waroonay ma jirto marka hadii sun lagu aasay wasaaraddan hadda ay samaysay xukuumadda Mustafa macdanta iyo batrool iyadoo isku daybaad isleedahay inay talaabo qaado si bal meesha waxa ka socda ogaato inta aan ka ogahay dadaal badan bay sameeyeen laakiin darbi baa hortaagan haddana waxa la yaab leh markii cudurka la soo bandhigay inay difaacdayba oo dhinaca federaalka uu difaacahay wiilkii meesha joogay xafiiska uu leeyahay been way
markee adu baarista ka keentay waxaad ku been maadaasha maadaa laabgeeyey anagu waxaan rumaysanahay cudurrada inay jiraan waxaan rumaysanahay wax ka badan oo la ogaanin inay jiraan adduunka waad ogtahay markii meel waxlaasoo kale laga samaynayo environmentiga ilaa xataa qabaleega lagala shiro tallaabo lama qaadi karo okay madaxweyne Mustafa maanta hadduu damco inuu meesha wax ka jiro ogaado oo uu dhex tago yaa hor istaagay anigu waxaan isleeyahay qawaaniin badan oo nimankii TPLF waxay ka tageen aad u khayr daran qaanuunka waxaa ka mid ah qaanuun dastuurka ku qoran oo la yidhaahdo wixii khayraad dhulka hoostiisa ku jira federaalka leh qaanuunkaas wuxuu kaa xarimay wax kaste oo khayraad marka qaanuunka shaydaaniga ay samaysteen wax badan buu baloogayaa labo inaga dacfigeena ku dariyana hoos u foorarno hadda oramadu markay saa u yimaadeenba ilaan iyaga abiye keenay kacdoonka wada keenay qawaaniinta dastuurka hadda waxba laga bedelay iyaga xanimaya waa yani guud ahaan ma faa'iido noo tahay hawlaha khayraadka sidii hore u qornaa si aan ahayn baa loo qoray oo goboladu inay wax ku yeeshaan laakiin waa wax cusub oo dhaqangalka waqti qaadanayo goboladan marka qaanuunka soo baxa markiiba uu ka hirgeli laakiin gobolkeenu maadaama ay xirami la tari maadaama shacabkeenu uu iska yahay shacabka hurda maadaama oo xisbigan haysta ay kii loo yeedhin jiray telefoonka Addis Ababa laga soo diri jiray lagama basugayo wax degdeg inay qaadaan yani si kalaan kugu dhigo 130 sano haddaan dagaalameynay maxaan raadinaynay xorriyad soo ma ahayn waan xaqiijin weyne soo ma konton baan helay oo maxaana la yidhi ismaamulkan yaa konton boqolkiiba konton idiina kontonkii nimanka hadda intay qaadeen yidhi aaba adaan dib kuugu soo celinay ila waa sax macnuhu markay BBD wax lagu sheego dhammaan waa intan waxaanu u soo dagaalameynay boqolkiiba kontonkiina la siiyay intay qaadeen yaa waxay dhaheen aaba adaan dib kuugu soo celinay noo soo dir qofka rabto aan markaa kuugu celiyo Ethiopia physically bay noo guumeysatay laakiin EBRDF tii tagtay maskax ahaan bay noo guumeysatay Zanaawi inaad ogtahay in kala maana Soomaaliya wax ku soo bartay dadka Soomaalida firfircoonadu yaqaanaa markuu yimid xukuumadda 91kii wuxuu gobolkeena ugu yimid rag wax xamar ku arki jiray saraakiishii ragii jaamacadaha dhigi jiray aqoon-yahanadii isagoo jabhada wuxuu sheegi jiray wuxuu damcay inuu yiraahdo iga aqbalo ila noolaado war ka sidaa bay dhaheen anagu inaan xorownaan rabnaay wuxuu ku qancay generationka inay wax isla fahmi kareen wuxuu laayo iyo wax qaxiyo ka dhigay waa kana jabhadaha noqonay Soomaa dhalinyaradii markaa joogtay intuu qaaday iyo ilaa PhD wuxuu dhigay si aad u fahanto gobolkeena meesha laga bedelay wiilkii isagoo Maxamed oo Xasan oo ina adeerka iyo maanta wuxuu matalayaa aragtidii Mala Zanaawi وكل محان uga baahanahay ismaamul gooniya aabihi wax soo baray waan ku kalsoonahay ha ii soo diray soo governorka gobolkeeni markan dib loo qaado hada yarad loo bixiyay oo la yiraahdo aabo awal baada wax baray haddana adaa sax ah annagu waxba garan mayno ninka marka gobolkii dhamaaba dib u gaday miyaad ka sugaysaa in batrool iyo dad baajirka ku dhacday iyo hawlaha ka hadlaysaa maxay